waxaa laga dhaqangeliyay dalkani Kenya sharcigaasi cusub oo madaxdii la soo dooran jiray jagooyin cusub ku soo daray jagooyinkii uu sharcigani cusub ku soo daray waxaa kamid ah jagada wakiilka dumarka ee Women Rep oo la doonayo in loo doorto ruux dumar ah countiga Garissa ilaa iminka waxaa isku soo taagay jagadaasi 5 haween ah oo ay ku jirto Maryan Xuseen Waraab waxay inooga warbixisay Maryan Xuseen oo inagu soo booqatay xafiiska Honkable ee magaalada Garissa in ay ka mid tahay haweenka ugu cadcad in loo doorto jagada wakiilka haweenka ee Women Rep. aniga waxaan ugu baaqi lahaa aniga keligay ma taagnin sida runta aniga keligay ma taagnin gabdho badan baa ila taagan waxa ila taagan laba gabdhood oo diaspora ka imaaday oo Regarsa ah Ceebla iyo Shukri waxa ila taagan oo kala gabar la yiraahdo Zainab waxa ila taagan gabar kale oo walaal aan nahay oo la dhaho Shamsacad Qaadir laakiin waxaan u maleeyaa dadka kulli markii la isku qabto waxaan u maleeyaa aniga inaan ugu experience badanahay waxaan u maleeyaa inaan ahay qofka dadka doonaya in la doorto ama ololaha ugu jira sidii loo soo dooran lahaa waa dad tiro badan ayadoo ruux walba uu ballanqaad u sameynayo dadweynaha laakiin dadku waxay isweydiinayaan ruuxan muxuu hore u qabtay wax xil dadweyne oo la ii dhiibay 5 sano ayay ahayd 5 sano waxaan ku faani karaa horta waxa hadda banaanka ii jooga oo aan dhihi karaa ilaahay ka sokow aniga soo wax baray waxaan hayaa 4 wiil oo aan iskool sare ka soo bixiyay form 1 ilaa form 4 aan soo baray laba ay jaamacad heer jaamacadeed ay gaareen labana ay college joogaan afarta horta waan hayaa waxa kale oo aan ku faanayaa oo aan hayaa dad fara badan oo aan shaqo geeyay oo hadda shaqeynayaan ilaa laba gabdhood iyo 4 wiil oo shaqo qoray ayaa jiraan dadkaas ayaga ah oo aan maalinta aan shaqada qorayay aan ka naxay dhibaatada ay ku jireen wakiilka haweenka ee Garissa County waxaa laga soo dooran doonaa 6 deegaan baarlamaan oo ay Garissa County ka kooban tahay waana olole aad u adag Maryan Xuseen Waraab dadweynaha Garissa County waxay ka codsanaysaa in ay u soo doortaan Women Rep ayadoo sheegtay in ay wax ka qaban doonto tacliinta ganacsiga iyo maalgashiga dibadda waan u qalmaa kursigan asaga ah qabiil yaa la fiirinin qoys yaa la fiirinin fiiri Maryan ahaan ha fiirinin naag ahaan ha fiiri wax qabashadayda fiiri waxaad fiirisaa kartidayda waxaad fiirisaa naaganimadayda waxaad fiirisaa bini'aadanimadayda fiiri laakiin ha fiirinin qof haween waayay mise qof heblo waayay marka qabiilna ha fiirinin diinna ha fiirinin xuu ahaayay reer hebelna ha fiirin waxaad fiirisaa Maryan ahaan si kastaba ha ahaatee waqtigan waa waqtigii ololaha doorashada dalkani Kenya Maxamed Ciise Honkable TV Garissa.